السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب يال soo dhawaada maanta waxaan tusi doonaa haddii alla idmo casharkaan idiin ballan qaaday casharkaasi wuxuu ahaa inay adeegsan kartaan waxa loo yaqaano computerkiina iyo mobilekiina ayagoo isku xidhan fariin uu kuu soo diri karo computerkaaga tusaale ahaan haddii qof computerkaaga ama xafiiska kaala shaqeeya ama cid kale ay passwordka garanayso ay computerkaaga gasho si aad u ogaan kartid laakiin waxaan aan idiin dhigayaa casharkani practice yar buu kaaga baahan yahay in yaroo practice baad u baahan tahay inaad samaysid practicekaasi muxuu yahay koorar yar baa la save garaynayaa waxaa la isku xidhayaa computerka iyo waxaa la isku xidhayaa waxa loo yaqaano mobilekaaga marka dhowr qaab baa jira oo la isugu xidho dhowrka qaab waxa weeyaan inaad isticmaashaan bahalka loo yaqaano telegram inaad isticmaashaan bahalka loo yaqaano push over inaad isticmaashaan macrodroid waxaana lacag la-aan ah telegramka mooyaane kuwa kale maaragtay waa lacag dad baa iibsanaya waa abis dad leeyihiin weeyaan oo inagu aynan lahayn saa daraadeed telegramka freeya xoogaa yar wuxuu u baahan yahay practice ah isaguna xoogaaga practiceka waxaan aaminsan inaad samayn kartaan oo isku dayi kartaan marka waan itusi doonaa qof kastana ha ku celceliyo ilaa 2-3 jeer baad ku celinaysaa hadduu kaa khaldamo finalna wuu kuusoo dirayaa koodhka wuu saxmayaa istabiska koodhka la marayo dhanna qaybta commentka idigu qoraya hadday youtube tahay hadday tiktok tahay hadday facebook tahay waxa muhiimka waxaweyaan computerkiina in maaragtay internetka a ku xidhaan internetku inuu ku xidhay tusaale qofka xafiiska kala shaqeeya badanka waxaa laga yaabaa in internetka uu ku xidhan yahay computerkaaga marka uu gelayo xataa haddii maaragtay internet usan ku xidhnayn marka dambe ee la daaro uu kusoo sheegi doonaa waxaa ku ogaan kartaa oo kale logiska computerka qaybtan waa qaybta koowaad qaybaha dambe waxaa ku sharixi doonaa sida caadiga ee computerkaaga in la daaray in gudihiisa la galay xilligii la daaray inaad ka ogaan kartid systemka gudihiisa aan isku dayno telegramkaaga ayaa soo furaysa waxaa fiican inaad telegramkaaga iyo isku linki garayso anu desktopkan sida whatsappka kasoo furay halka waxaa ku qoraysaan bot father telegramka wuxuu leeyahay search waxaa ku qoraysaan bot father markood botkii baan abuuraynaa kadibna bot fatherkaasaad ku dhufanaysaa bot fatherka marka bot father kusoo baxo aniga horey baan kuugu diray waxaa sameynaysaan waxa la yidhaahdo aan idiin soo dhaweeyo waxaa lagu qorayaa intaasaa lagu qorayaa slash iyo new isagaa ku sheegi doona haddaad rabto inaad abuurato waa kuwan mar koowaad la hadashaba haddaad wax weydiiso start haddaad ku dhahdo eeg start aan intaa keliya aan ku qoraynaa waxaan weydiinaynaa start waxaan leenahay slash kadibna waxaan leenahay start kadibna wuxuu ku odhanayaa waxaad abuuranaysaa baxad abuuranaysaa so waxaan u baahan nahay inaan bot cusub samayno new bot ayaan ku dhufanaynaa new bot maraan ku dhufanno wuxuu ku weydiinayaa magac u samee wuxuu ku oranayaa magac u samayso marka magaca waxaan u bixinaynaa win alert maadaama windowskeena yahay win iyo alert ayaan u bixinaynaa haddaan inter dhahno hadday wax naga khaldamaan isaga inoo sheegi doona win alert ayaan ula baxnay waka wuxuu kaloo ku sheegayaa username baad abuuranaysaa eega username ayaa abuuranaysaa usernamekaas waa inuu ku dhammaado kelmadda bot kadibna waxaan u bixinaa isagana win bot oo kale win iyo dash bot ayaan u bixinaynaa inter baan leenahay haddaan magaca la haysan usernamekan horea loo qaatay buu yidhi waxaan leenahay cabdixaliim dash waayahay bot ayaan leenahay underscore bot waayahay kan miyaa la qaatay lama qaadan marka intaa geliso anu kan practice waxaan idiin siinayaa cashar ahaan baan idiin siin doonaa laakiin ma isticmaali doona waan delete garayn doonaa linkiga uu ku siiyey waxaa dhahaa token hadeerba ogaada wuxuu ku siin doonaa markaa intaa samayso userkii baan samaynay win alert baan u bixinay waa idinka arka win bot ayaan u bixinay cabdixaliim bot kaasuu inaga yeelay markii dambe kaa waa la qaatay buu yidhi win bot ayaan u bixinay waxaa samaynaysaan numberkan xifdisanaada meel igu qora numberka okay muhiim weeye numberkaasi intaa markaan dhammayno waxaan eegaynaa waxaan tegi doonaa searchigii baan ka raadinaynaa magaciisa muxuu ahaa cabdixaliim bot ayuu ahaa halkanaan tegi doonaa waxaan ku qoraynaa cabdixaliim dash bot okay kaasaan raadinaynaa waka okay su-aal baan weydiinaynaa su-aashaan weydiina waxa weeyaan waxaad noo sheegtaa ID-geena so
waxaan idin siinayaa link ama isagaa idiin soo qoraya badanka wuu soo qoraa wuxuu idin odhan doonaa tokenkaaga isticmaal badanka eega kuwa horaan kula hadlay oo dhan waa kuwan isagaa kuu sheegi doona haddaa uu tiraahdo ID-ga aa weydiiso wakaaday intaasuu kuu qori doonaa marka meesha waxaa ku bedeli doontaa intaa waxaa lagu bedelayaa iyadoo laga tegayo bahalkayga intaas waxaa lagu bedeli doonaa kii aynu hore u haysanay intanaan copy garaysanaynaa ID-ga saan usoo helno ama control C iska dhaha linki ahaan weeye control C ayaa idiin fiican dad baa jira maaragtay ayaraan ugu wadayno si u fahmaan meeshaasaan furi doonaa kadibna paste baan ku dhahaynaa kadibna botkaan kusoo noqon doonaa waa tu bot fatherka ka hadda la hadlaynay bot fatherku wuxuu ina siiyey linkigan waa kii ugu dambeeyey weeyaan linkiga uu ina siiyey ayaan soo copy garaysanaa fiiriya linkiga ayaan soo qaadan doonaa waayahay waxaan imaan doonaa halkan meesha ay ku qoran tahay token iyo intaa eega intaan haraynayo intaasaan ku bedeli doonaa waxaa leeyahay control V kadibna enter baan dhahayaa activation buu samaynayaa marka ID-giina wuu kuu sheegayaa wuxuu ku leeyahay waa run wuu maran yahay waa la bilaabay waa true wuu shaqaynayaa aan mar labaad aan ku dhufto mar labaad soo activate garoobo marka hadduu kaa diido asaa ku dhufato waa inaad botkii soo start garaysaa botkii ayaan start garaynaynaa telegramkiini baan ku noqonaynaa telegramkii ayaan ku noqonaynaa magaciisu wuxuu ahaa Cabdihaliim bot waa soo heli kartaa hadda raadiso magaciisa okay markaynu ku qornay Cabdihaliim bot wakaa wuxuu soo saarayaa win alert waa kaasuu inoo soo saaray win alertgan ku dhufanaynaa wakaa botkeenii wax message male waxba kuma qorna laakiin inagaa fariin u dirayna waxaan dhahaynaa start garee inaga dadkeena waxaa la yihahdaa anuu cashar ahaan baan iin tusayaa waa botka maraa ku dhufato wax fariin ah ma taalo buu yidhi laakiin inaga ayaa start garaynayna waxaan ku dhufanaynaa dushiisa waxaa ka aragtaan meelay ku qoran tahay start ama adaa waxaa ku qoraysaa slash iyo start sidaan kii markii hore ugu qoraynay waxaa ku qoraysaa slash iyo start so start waan iska dhahayaa waa inaad bot abuuran kartaan start wakaa ama haddii meeshaas ku bannaan tahay oo mobilkaaga ku samaysatay start dheh halkaa start ayaa dhahaysaa linkigeenii baan ku noqonaynaa eega telegramkayla waxaynu soo copy garaysanay bot numberkii uu ina siiyey bot fatherka ayaan soo qaadanay intaasu ahaa markaa enter baan haddeer dhahaynaa wakaa hadduu shaqeeyey wakaa chat ID meesha ku taalo ayaa tegi doontaa kaasaa soo qaadanaysa waxaa raadisaa hadday kugu dheeraato chat ID kay ku qoran tahay ayaa raadsanaysaa marka ID-ga hadda uu kana haysto ID-giisu waa intaa languagekiisu wakaa laakiin eega hadda kaasaan soo qaadanaynaa wakaa kaasaan soo qaadanaynaa ID-ga haddaa sii raacdo xitaa halkan waxaa ku qoran chat ID kukaa chat ID waa numberka loo baahan yahay ee aynu soo copy garaysanayno waa marka labaad waa stepkii ku xiga weeyaan stepka ku xiga waxaa furanaysaa notepad ba soo furanaysaan notepad markaa soo furataan koodhkaa yar ayaan qabsanaynaa koodhkaa yar ayaan haysanaa koodhkaa waa aragtaan dhammaantiin meeshii ahayd tokenka halkaasaan kasoo qaadanaa tokenka waa xasuutaan bot fatherka kii uu haystay ama halkan imo bot fatherka gal tokenkaa weeyaan ku ina siiyey waa tokenkaas fiiriya tokenkaasaan soo qaadanaynaa waa kan fiiri waa kan tokenkaas soo qaado kaas waa token anu cashar ahaan baan idigu dhigayaa okay token baan dhahayaa wakaa tokenki waa aniga soo qaaday tokenka markaan soo qaato kadib halkaa xaraf dheeraada ayaa ku jira sorry aan saa wada hareeyo halkaasaad geenaysaa token ayaa kaa la yidhaahdaa waa arkaysaan kaas waa tokenkii weeye quotationka ka saari maysid waa u daynaysaa ID-gii baan kudii sheegayaa ID-ga waxaan kasoo qaadanaynaa halkan ID-gii isna waa kan fiiriya ID-gii halkaasaan geli doonaa chat ID waa kaa numberkaa weeye chat ID-gu isna soo copy garaysanayaa waan delete garayn doonaa mar dhow labadoodaba kadibna halkanaan iman doonaa so waxaan tegi doonaa halkaasaan kusii daynayaa isna chat ID-gii waan sameeyey waxaa lagaa rabaa haddaba dhegeysta fududii waxba inooma dhimana
waxaan tegi doonaa file, waxaan tegi doonaa save as, waxaan samaysanaynaa folder la dhaho script, waxaan tegaynaa this pc waa garanaysaa soo ma, this pc baan tegi doonaa. This pc markaan taaganahay, okay, this pc baan gelayaa wakaa gudihiisa, this pc gudihiisaan tegi doonaa, ama this pc markaan sii galo, sorry, this pc ma tegayo, local disk baan tegi doonaa. Local disk wakaa, local disk markaan sameyno, halkan waxaan ku samaysanaynaa folder cusub. Folderka waxaan u bixinaynaa script oo s2 weyn tahay, scripts weliba, scripts ayaan dhahaynaa. Enter baan leenahay folderka. Folderka waan sii furaynaa, faylkeeni baan magac u bixisanaynaa markaa. Haddaba eega, magaca aad u bixinayso, magaca u bixinayso aday kugu xidhan tahay. Anu waxaan kaa rabaa uun inaad .psi kusoo gabagabayso, ps1, sorry, ps1. waxaan u bixiyay pc notifier, halkana waxaan ka dhigayaa all, halkana waxaan ka dhigayaa pc notifier ps1. intaa markaan dhameeyo, faylka waxaan dhahayaa save ayaan dhahayaa, waan save gareeyay faylka, waan dhameeyay. waxaan doonayaa marka intaa kadib inaan isku xidho labadoodii. Okay, intaa markaan dhamayno, okay, intaa markaan dhamayno, waxaan rabaa inaan soo kiciyo PowerShell. PowerShell-kan soo kicinaya. waxaan tegaynaa halkan, waxaan ku qoraynaa PowerShell ayaan ku qori doonaa. Okay, waxaan ku qoraynaa PowerShell. markaan ku qorno right click C, run as administrator de. Okay, intaa markaan dhahno, waxaan dhahaynaa yes. Okay, way codadkoo dhan waan idiin soo gelinayaa meesha, step 1, step 2, xagga commentka ka eega, iyo weliba codeka laftiisa la qorayo. intaa markaan dhamayno, waa kan halka inoo yaala. waxaan ku jirnaa halkaa, waxaan soo qaadan doonaa hal line oo code ayaan intusi doonaa waxa lagu qoraya ah. Okay, intaa markaan dhamayno, codekaan idiin sheegay wakaa, intaas hala kusii daynaynaa, fiiriya, intaas hala kusii daynaynaa. Okay, enter baan leenahay, wuu qaatay. laakiin waxaan rabaa inaan tago folderkaygii script, waxaan tegayaa this pc, waxaan tegayaa local disk C, kadibna waxaan tegayaa meeshay ku qornayd script. waayahay, scriptkaygaan tegi doonaa, waa kan scripts faylkaa yaala ayaan right click siinayaa. waxaan tegayaa properties, eega faylkan dul tegay, right click, kadibna properties, kadibna waxaan tegaynaa security, kadibna faylkaasaan soo qaadanaya, intaasaan copy garaysanayaa, copy baan leeyahay. waxaan tegi doonaa scriptkayga ii furnaa, kadibna waxaan qorayaa cd space, ku paste garee, control v de, ama mousekaaga dhinaca midig taabo, waa ku paste garaynaysaa. halkaasaan kusii daynaynaa, waa kan, halkanaan dhahaynaa right click, wakaa soo qaatay. faylkeeni buu kicinayaa marka, faylka baan kicinaynaa. faylku hadduu diido, halkan waxaan tegi doonaa, waxaa qortaan, oo halkan uu inaga diido, waxaan tegi doonaa cd, kadibna waxaan qoraynaa 2 dhibcood, cd 2 dhibcood. hadda cd aan dhex taaganahay, cd baa qoraysaa, script baan dhahaynaa markaa, script. waka hadda scriptigii waan la soo baxnay. maxaan sameynayaa, waxaan qorayaa cd, kadibna sc baan taabanaya, kadibna tab meel la yidhaahdo ayaad qabanaysaan. enter baan dhahayaa. enter markaan dhaho, faylkii waan dhex taaganaya hadda, magaciisa wuxuu ahaa pc notifier. waxaan qorayaa pc, haddana tab baan qabanayaa, enter baan dhahayaa. waa in fariintii ay toos u tagtaa meesha messagekii waa la diray, toos ba hadda messagekii loo diray. waxaan tegi doonaa meesha la yidhaahdo telegramkeeni codeka wuu helay, wakaa maxaa la ku qoran your pc just started, wakaa. haddaan rabno fariinta inaan codeka ka bedelno, waxaan tegi doonaa codekeeni notepadkeena ugu qornaa halkan yaalay, halka waxaa ku qoran intanaa ku qoran your pc just started. waxaan ku qoranaa computerkaaga qof baa daaray, computerkaaga qof ayaa daaray. waayahay, waan save garaynaynaa. okay, waayahay, waan save gareeyey. haddaan mar laad kicinaynaa, eega fallaadha sare up arrowga qabta si faylku idinku soo baxo. haddaa saa garan weydo, pc qor, tab qabo, enter dheh. fariin baa soo dhacday, fariinta soo dhacday waa tan, fariintii waa tan, let me close this one. fariinta halkan inoo taallaa iminka, telegramkaan tagnay, telegramka halka waxaa inoo yaalla computerkaaga qof ayaa daaray, iyo sawirkii yaraa meesha yaallay. sawirkii waan iska saari karnaa, dhib male. waxaan rabaa intaa marka laga yimaado in aan automatic ka dhigna fariintan. si automatic uga dhigi karnaa, oo marka computerka la daaro ay isaga soo dhici kartaa. 2 hab oo fudud baan tusayaa, labadaba isticmaala siduu ku shaqeeyo, aan ciladii ugu iman. Windows CR qabo oo ranta la soo baxa. haddaad saa u garan weydo, start soo ku dhufo, waxaa ku qortaa run ku qor.
run ku qor what are run waa taa weeyaan runta inoo soo saaraya runta marka inoo soo saaro waa inoo soo baxdo waxaan ku qoraynaa startup waxaan ku qoraynaa marka waxa loo yaqaano shell startup waxaan qoraynaa shell maadaama startup kan ku soo daraynaa okay waxaan ku soo daraynaa startup-ka enter dhe daaqadaas ayaa ku soo bixi doonta shell startup baan nidhi waa kan markaan shell startup dhahno waxaan abuuraynaa shortcut right click si meel bannaan hadda fiiri meel bannaan markuu daaqadan startup ku soo baxdo oo programmada computerka iska daarmo markay soo kacaan right click si meel bannaan kadibna waxaad tiraahdaa waxa loo yaqaano create new sorry new kadibna waxaan abuuraynaa shortcut baan ku dhufanaynaa new baan nidhi folderka dhexdiisii kadibna waxaan leenahay shortcut markaan tago code aan watay baan idin tusi doonaa waxaan qorayaa PowerShell intaasoo aan watay ayaan qori doonaa so intan waxaan ku bedeli doonaa intaasoo arki maysa waxaan ku bedeli doonaa programkeena magaciisa waxaan tegaynaa folderkeena wadda dheer maaha wadda yar iska fudud folderkeeni baan tegi doonaa local disk waxaan tegi doonaa scriptigaan furaynaa shayganaan right click siinaynaa maadaama rabno inaan automatic ka dhigno waa maaragtay failkeenii PowerShell-ka ahaa properties baan ku dhufanaynaa security baan sii tegaynaa intanaan copy garaysanaynaa markaa waan copy garaynaynaa markaan copy garayno waxaan tegi doonaa halkan fiiriya oo ahayd meeshii folderkii aanu samaynaynay intaasaynu ku bedelanaa inta kale waxa ka bedeli mayno failkaaga waxaaba meeshaan idiin soo gelinaya codeka intaasaan ku qorayaa waa PowerShell.exe Windows style hidden dash minus file iyo failkaaga meeshuu yaalay kadibna next baa dhahaysa kadibna magac ula baxa telegram bot ula baxa hadaa doonto telegram bot ula baxa hit enter markaa iska siidaa waa dhammaynay next farsamaa jirta oo ah task scheduler baha la yidhaahdo startigan taga computerka halka waxaa ku qortan task waxaa jira mid la yidhaahdo task scheduler waa ka kusii xiga waa stepka ku xiga kadibna kaasaan soo kicinaynaa markaan soo kicinno taskiyada computerka automatiga ah ayaa halkan soo gala halkaasaan imaan doonaa right click baan siinaynaa kadibna create task baa dhihi kartaa dhinacana create task baa dhihi kartaa create basic task maaha create task ayaan dooran doonaa create task markaan doorto halkan magac baan u bixinaynaa waxaan u bixinaynaa pc okay notifier waayahay halkan waxaad tigta saaraysaan run only one user is logged ka hooseeya saara kana tigta saara run with highest privileges saara okay triggerskaa gelaysaan kadibna waxaad ku dhufanaysaan new maraa ku dhufataan daaqadaasaa idiin soo bixi doonta iyaduna waxaa laga marka halka yimaado computerku inuu culayskaa noqdo halkan soo furo at log on dooro halkaa fur at log on schedule baan u samaynaynaa kadibna at log on ma ka dhigatay okay taabaysna waayahay action gala meesha ku qoran tahay kadibna waxaan dhahaynaa isna new halkan waxaan ka dhigaynaa start programka u dayso kadibna halkan waxaan leenahay PowerShell halkan waxaan ku qoraynaa PowerShell.exe halkanna waxaa lagaa rabaa failkaaga locationkiisii iyo in yaroo macluumaadoo kale in la geliyo koodhkaasaa ku qoraysaan yar eega meesha argument uu ku taalo koodhkaana meeshaan idiin soo gelinaya isna waka okay meeshii baan tegi doonaa waa kan halkaasaan ku qoraynaa marka eega waa ku sii daynaynaa halkan waxaan ku besti garayaan laakiin intii dhexe sidii baynu isaga bedelaynaa failkeena sida uu meeshuu ka yaalay intaa quotationka ku dhex jirta sideenan u bedelan doonaa so meesheenii baan tegi doonaa waxaan tegaynaa programkeenii telegram botka maaha waxaan tegi doonaa scriptskeenii script baan dhex taaganahay right click baan siinayaa kadibna waxaan tegayaa properties kadibna waxaan tegayaa security kadibna waan soo copy garaynaynaa okay kadibna waxaan tegi doonaa meesheenii schedulerka markaan nimaadno meeshaasaan ku dhex besti garaynaynaa ila inaga failkeena isku fail ma nihin qofkan so waxaa soo gelaysaa waxaa sii gelaysaa scripts waxaa kasii gelaysaa pc notifier kadibna waxaa dhahaysaa okay kadibna kana waxaa dhahaysaan okay labadaba okay dhaha
password buu ku weydiinayaa passwordkaad gelinaysaa okay markaan dhahno oo uu dhammaado sheekadii saas ku gabagabowday waxaa la rabaa haddaba computerkaaga markaa saa usoo restart garayso in uu soo diro fariintii waan eegi doonaa computerka ayaan soo restart garaynaynaa waa inuu markiiba fariin deg deg ah inoo soo diraadhaa computerkaaga oo passwordka la geliya dee soo garamaysaan so passwordkan gelinaynaa waan check garaynaynaa goorta uu inoo soo diro okay haddii ciladii ku qabsato marka koowaad waxaan kuu tilmaamayaa badhamo waxa aad samaynaysid computerka waa inaad u furtaa remote-ka oo halkanin uga furaynaa codadkeeni waxaynu dhan waa kuwan stepskii aan raacaynayna waa kan fiiriya oka haddii uu kuu shaqayn waayo kow waxaanu gelaynaa taskigii kanaan tegi doonaa task schedulerkii de task schedulerkii ayaan soo furanaynaa waa hadduu shaqayn waayo okay markaan soo furno taskiska jira oo dhan baan eegaynaa oo halkan yaala oo inoo shaqaynaya okay markaan hoos eegno waxaan ka baadhnaa PC notifier double click baan siinaynaa marka waxaad eegaysaa halkan hoose Windows 8 bay naga ahayd baa laga yaabaa Windows 10 ka dhig waxaa kaloo iska check garaysaan meeshan actionka meeshaas iska check garaya lafteedu aad bay muhiim u tahay aad bay muhiim idinku tahay okay haddii xitaa PowerShell-ka waxaa ku cilad bixin kartaan faylka oo PowerShell-ka aad sidiisa uga soo furtaan waa aniga idin tusay keligiina PowerShell-ka furtaan isagoo ku cilad bixin kartaan hadduu intaa kaa diido waxaad tegi doontaan faylka oo dhan waxaan idiin soo geliyey meesha kan okay iska dhe passwordkii bina weydiin doonaa waayahay so kan waan iskaga baxaynaa dhaladeenii madoobeed baan tegi doonaa waxaan ku qoraynaa haddii ay maaragtay cilad kugu timaado dhowr waxaan ku siin doonaa farsamo oo aad ku hagaajin kartid farsamada koowaad horta waa inaad koodhkaagii soo eegtaa farsamada koowaad aan kuu sheegayaa waa inaad koodhkaagii dib u eegtaa oo botka iyo ID-ga labadaba waa inaad saxdid farsamada ku xigta waa farsamadan weeyaan waa inaad intan ku qorto meeshaa ku qor soo copy garaysa intaa waxaad geysataa meesha loo yaqaano PowerShell-ka ayaa intaa kusii daynaysaa okay aan soo dhaweyno kadibna wuxuu kuu furayaa meel ayuu kuu furi doonaa waka so waxaa leedahay yes waxaa kaloo ka horeeyana haddii uu kaa diido get execution policy ka aan hareeyey isna waa hareynaysaan waa hadduu ku shaqayn waayo isna halkan aad iman doontaan waa kusii daynaysaa waka labadaas waa okay hadduu si kale kaaga diido task scheduler marka computerka log geliso ama soo restart garayso haddii kale waxaad tegi doontaa halkan waxaad tegi doonaa meeshani PC notifierkii ku qornayd waa task schedulerkii PC notifier waa kan double click baan siinaynaa waa kan kadib waxaan tegaynaa actions kadibna triggerskan galno new de triggerska sorry new maaha raalli ahaada waxaan tegi doonaa meeshani ugu horeysay oo ah general userkii waa haysanaa actioniska tag actioniska laftiisa kan double click c kanna waa okay labadaaba hubi userka kee qaadanaysaa triggerska gal laba jeer ku dhufaysna user kee qaadan specific user dheh oo computerka isticmaalaya dheh okay dheh isna any user waa ka dhigi kartaa computerka intaa markaa dhamayso kana windowsa ka dhigtay labadana aa iska saxdo okay dheh wuu shaqaynayaa markaa aad ku celceliya intaa ku celceliya faylka oo dhammaystiran oo step by step ah waan idiin soo geliyey koodhka meesha kale ee muhiimka ah waa aniga idiin sheegay anigu kan hadda ma isticmaali kartaan kaskana waa kaygii waa inaad iska taxdaan tokenka iyo chat ID-ga labadaas iska saxa sida lagu helayana waan idin tusay aada umahadsantihiin asalaamu calaykum saaxiibayaal keeni hadda soo dhex haddaan idin tuso hadda uu soo diray kaa soo diray computerkaaga qof ayaa daaray weli markuu login sameeyo